adduunka u gasheen oo waad isdhilaateen dhaxalkiina waa dhimaninkii ee aan dhaqso u aramo dhaaftaan wada diinta dhiga iyo dhiiranaha wiila dhalaanka iyo caruurta wadaan oo il ku dhaawabtaan ama geedada ma dhaaftaan iyo ninkii dhowro sharaftiina dheefna kama heshaan iyo waxaad meel ka dhigataan dhigiinana ma eegtaan siday nabadu dhowrteen oo dhaqaaliyo aqoon baa bulshadu dheere ku gaadhayo dhulkii dahabkii ugu dhaadhaceen deemanti iyo luurka dhinacay haystaan si aan baahi loo dhimanayo idinkuna dhibkaa dheefsataan iyo dhiigga aadmiga is dhamayso idinkoo is dhalay oo isdhinac yaale helimo ma dhowrtaan xigtiyo dhaqanka noo yaale dhammaanteen qabyaaladi hadday ina dhammaynayso dhibaatadan hadbaan laga fogaan dhuuxayna raacday dhulku guuri maayo oo rabbigeen baa inoo dhigaya dhalashaduna waa soo jireen oo dheeli noqon mayso dhib kastoo adduunyada ka dhaca iyo dhiila tira beesho dhabtu waxay istaagtaa inaan nabad la dhaafaynoo dhukaal way ka daran tahay colaad ehel dhex taallaayo kugu dhimayo kaa dhimay markay dhagartu soo gaadho waa dhaawac kugu yaal iyo xanuun dhiigga kaa jaqa daadi maayo ruux dhoohanoo dhibay dadkiisiiyo dhamac weeye naareed qofkii dhiiri geliya iyo dhaqaalaana kii dhiibayow waa dhimbiil darana dhaqanka iyo siyaasiga dadka doomirka u dhibay dhanna umaydu turin oo fidmaa dhinaca saarteenee dhalaartii qiyaamaha waxaad dhigatay baa yaal dhalandhoolka hooyada qaxday iyo ubadka nilaabay dhulyaalkan xanuunkaba ka kicin ee dhaxanta loo tuuray dhallinyarada bay hooftay ee gaajo dhinacaysay dhaawacayo geerida axay dhaafay tirabeelka dhan kasta ee ahaataba aniga waa dhib igu taal dhangaagaalo beelada u dhashay ee dhiiri gelinaya dhiig islaamninkii daadiya naaraha u dhigana afka dagar ku goysan haddana faan ka dhigatanoo dagaal dhaca islaamkana dhex yaal dhinaca kaa saartay dhimashada ninkii geystaba isu dhigantiina dhanka naarta laga geeyey baad kaga dhacaysaa ee dhan kastaba haddaan kaaga digay dhigo warkaygaasoo ka dheero colaad lagu dhinto iyo foolxumada dhiigga magacaygu waa mursal aadan barre waxaan ku magaleeray aboonaar bari waxaan ilaahayna abuurtay ka baryayaa inuu colaadda iyo dhiigga daadana inaga joojiyo dhinacyada na waxaan ugu baaqayaa hadday tahay dhaqanka garaadada iyo hadday tahay xukuumadda muuse bixi labadaba waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan dhiigga daadanaya uguna taliyaan dadkaas waxa weeyaan siday u noolaan lahaayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu